kadib kulan ay isugu yimaadeen isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka dhacay magaalada Buuhoodle qaarkoodna kaga soo qayb galeen khadka telefoonka ayay kaga hadleen dagaalka ka socda deegaanka Tukarraq oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland. isimada ayaa sheegay in dadka deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn ay wax ka dhisteen maamulka Puntland, maamulka Somaliland ay ugu baaqeen inuu ka baxo deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo uga digay inuu ku sii adkaysto sheegashada deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen. waa kuwan Suldaan Saciid Cismaan Cali iyo Garaad Saleebaan Buraale oo ka hadlaya arrintaasi. haddaanu nahay isimada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu cadaynay oo hore u cadaynay oo mar walba cadaynay oo haddaanu cadaynaynaa inaanan Somaliland dawlad la lahayn wax heshiis la gelin waxaan Soomaalinimo ahayna iyo naga dhaxaniya islaamnimo iyo derisnimo waxay dalkayga ugu soo duuleen oo isaga soo galeen oo intaasoo sanadood ku joogeen waxaanu diidaynay dagaal la dhex mara oo dhiig uu qulqulo. waxay kaliftay in kaarayaashii laga soo qaaday Gabiley Tukarraq la keenay. waxaanu la yaabsanay waxay rabaan, waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan, waxaanu la yaabsanahay annaga idin xukunno, annaga naga mid tihiin, dawladda iyadana waad ku khasbantihiin, haddaad diidaanna waa idin laynaynaa. qarnigii 21aad baa lagu jiraa. adduunka wax sidaa u dhaqma lama arag, adduunka oo dhan wax saa u dhaqma lama arag. Soomaalina daaba dad aan walaalanahay, derisna nahay, waxna aanan wada samaysan, waxna aanan ku heshiin oo annaga iyo dhulka yagaba sheeganaya. duulaamana soo qaadayay intaa. arrinta maanta u dambaysa ee sii socota Tukarraq la sii wado, la socanood wada xaraysan tahay yaanu ka hadlaynaa. waxaanu beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baanu wax wada dhisannay, annagu Puntland baanu heshiis galnay, annagu Puntland baanu wax la samaysanay, laakiin walaalaha yaga waqooyi heshiis kuma nihin, lamana aanu heshiin. wax walaalnimo iyo Soomaalinimo ka sokaysa oo aanu wada galnay ma jirto. Boqor Cabdilaahi Axmed Cali iyo Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa iyaguna telefoonka kaga qayb galay shirkaasi. waxa ayna dhaheen horta xadka la sheegayo nimanka Soomaaliland ku hadlaan xadku waa labada gaataba. Ingiriis dalka uu wada xukumay nimanka Somaliland Soomaalidka loo yaqaan anuu soo kumalihin dawladda loo wadaagno lama amrisan wadiifada lama lihin. Khadar Cawl Ismaaciil Goobjoog Buuhoodle.